مشروعا laakiin maanta aan joogo oo loo yaqaan Amal Village oo ku yaala duleedka magaalada Garowe waxa uu noqon doonaa markuu dhameystirmo Amal Village waxa ka soo bixi doona hadii alla yiraahdo sidoo qorshuhu yahay ilaa 1,100 guri iyadoo gurihiiba la dhisin baa jidadkii iyo dhirayntii iyo meelihii biyo mareennada ahaa iyo wixii oo dhan la diyaariyay فيسكان وفيسكي كواد حافظة قيبتان marka hadda aan dhex marno waxay ka kooban tahay waa qaybta xafiisyada iyo qaybihii commercialka iyo waliba masaajidkii wixii burbura ama xumaada qadda kuma darno mar labaad ayaanu burburinaa recycle ayaanu gelinaa dib ayaanu u isticmaalnaa processka ayaanu xag ka soo gelinaa أنا يقول كان يكسرنا وأنا نتصالح ونقول الصومالي أردن ما هجروا كلي جروا كلي ما شيت كان مركها 4 كيلومتر مقالة كي مادة أمل فيلج سوقلا ما إذا كان دسي لما أنت سنة قاعد سنة ku noolow dalkaaga oo la noolow dunida kale maanta waxaan ku sugnahay magaalada Garowe waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu kobaca roon ee guud ahaan dalka Soomaaliya mashruucan laakiin maanta aan joogo oo loo yaqaan Amal Village oo ku yaala duleedka magaalada Garowe waxa uu noqon doonaa markuu dhameystirmo mid si aad u weyn wax uga bedela muuqaalka maanta Garowe ay leedahay Amal Village waxa ka soo bixi doona hadii alla yiraahdo sidoo qorshuhu yahay ilaa 1,100 guri marka wajigii ugu horeeyay ama facekii ugu horeeyay ayaa imika socda guryahan haddaba waxa maal gelinaysa Amal Group waxaana guryahan ay noqon doonaan qaar aad iyo aad uga duwan dhismayaasha imika ka jira magaalada Garowe haddaba mashruucan iyo goorta taabagal uu noqonayo inta wajiga oo yeelan doono qiimaha guryuhu ay noqonayaan iyo waxa magaalada uu ku soo kordhinayaba waxa iga waramaya Maxamed Faarax oo isagu ka mid ah maamulka sare ee qaybta real estate-ka ama dhulka iyo guryaha Amal Group محمد هذه أدبر كوس سلامة يسكور سمونا كسني وكفر أحسن ما أنت هنا أمل فيليج هذا شو هذه أدبر كوس دوينا فرحت بينوتها جارة هنا كوس دوينا ما أنت أمل ريل سيد عبد السلام شو دولا أمل فيليج مسافة تلك بيوتشر تابر تمام مقالة 4 كيلومتر بيوتشر ده هل كان شدك صدق كبرك لقى صدق عاقو أمل ريل سيد 4 كيلومتر ولامية أيات كوي معنا صحافة عصر أيام الفيليج مركا قبتنا إنه ما أنت كوس وقرناهاي محاكو دورتها waxaan ku dooranay waa dhul qurux badan oo diyaarsan oo buura ku wareegsan yihiin oo environment-kiisu aad iyo aad u qurux badan yahay oo meel deegaan ku habboon ah soo jeedasho leh Cabdisalaam walaal goormo bilaabmay markaa mashruucan 2019 ayaa hindisihiisa la bilaabay laakiin si toos ah waxa loo guda galay 2020kii intaasna waxa laga shaqeynayay infrastructure-ka guud ee xaafadda cagaarintii naqshadayntii wadooyinkeeda in magaranaysa yaan laga shaqeeyo qaybahaas oo dhan haddana waxa loo diyaariyay in guriga la bilaabo Cabdisalaam waana la bilaabay guriga oo marka hadalkaaga waxaan ka fahmay Maxamedow iyadoo gurihiiba la dhisin baa jidadkii iyo dhirayntii iyo meelihii biyo mareennada ahaa iyo wixii oo dhan la diyaariyay intaan guriyahanba la bilaabin ayaan waxaan ka sii shaqeynay infrastructure-ka guud ee xaafadda in la hagaajiyo sida in la beero ma garanaysaa gabigeeda xaafadda oo cagaar laga wada dhigo in laamiye la saaro in wadooyinka la nidaamiyo in ceelasha la qodo in biyaha macaan la diyaariyo in qaabkaas markaas iyadoo dhameystiran markaa ka bacdi guriyihii deegaanka la bilaabay Cabdisalaam maxamed oo markaa dhismayaashan imika diyaarsanay
maxafiisyadii iyo goobihii ganacsiga ugu tala gasheen ba cabdisalaanow xaafadda marka horeba saan kuu sheegay afar Facebook ka kooban tahay face baa loo dhisi doonaa facekan waa facekii koowaad ee xaafadda qaybtan marka hadda aan dhex marno waxay ka kooban tahay waa qaybta xafiisyada iyo qaybihii commercialka iyo waliba masaajidkii waa faceka hore inteedii marka face kastana wuxuu yeelanayaa intaan oo kale oo ah qayb face kasta inuu yeesho qaybtiisa commercialka masaajidkiisii xafiisyadiisii gaarka ahaa marka hadda intaan aan dhex soconayno waa qaybihii commercialka iyo xafiisyadii isugu jiraan cabdisalaam marka ma la oran karaa waaba magaalo iskeeda waaba duni kare yaa ugu tala gasheen guryahan inay iibsadaan waxaan ugu tala galnay oo mainka ama dadka target marketka ama target people-ka dadka ah ugu muhiimsan oo ugu tala galnay xaafadan una diyaarinay waxa weeye waa dadka qurba joogta ama diaspora ee wadanka ku soo gurya noqonaya inay helaan noloshii ay xagga ku haysteen mid la mid ah inay halkan ku helaan cabdisalaam walaal gartay marka imika wajigii koowaad ba ayaa imika hawshiisu socotaa wajiga koowaad imise guri buu noqonayaa wajiga koowaad wuxuu noqonayaa 200 oo guri ayaanu dhisaynaa hadda oo leh qaybaheedii commercialka masaajidadeedii iyo qaybaheedii kala duwanaayo dhan oo adeegyadeedii oo dhan ay ku dhameystiray adeegyada kale marka laga tago masaajidka maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah supermarket weyn waxaa ka mid ah dukaamadii goobihii ganacsiga waxaa ka mid ah istaalkii waxaa ka mid ah qaybihii clinic ahaa waxaa ka mid ah swimming poolkii waxaa ka mid ah carwooyinka dharka lagu gadanayay qofka xaafadan soo dega ugama baahanaya cabdisalaam walaal inuu adeeg suuqa uga doontay halkaan ay adeegyadii oo dhan ku dheeyay wax walbaaba halkan ugu dheeyay muuqaal imika arki doontaan oo runtii la yaab laa jira oo ku saabsan sida looga sii fakaray sida maxamed sheegayo xagga dhiraynta oo kale imse geed baa ku beerteen maxamedow cabdisalaam hadda waxaa beeran 4000 oo geed baa halkan ku beeran ilaa 5000 oo geedna qaybna waxaa loo diyaariyay in meelo kale lagu beero qaybna waxay ku jiraan nursery-ga guud ee xaafaddu leedahay oo xaafaddu waa meeshan waxay leedahay nursery weyn oo dhirta lagu xanaaneeyo oo idinka nursery-gana iska leh ama halka waa tagi doonaayo waad soo arki doontaa haddii alla idin runtii waxa weeye jawi aad iyo aad la yaab u leh dhirtuna dee si fiican bay u baxeen si fiican bay u baxeen waxaynu iskugu jiraan waliba dhirta geetimireedkii baa ka mid ah dhirta qaybaheedii kala duwanaayo dhan ayaan ku beertaan waxaan u diyaarinay waa beerta nasniinada iyo dalxiiskaba oo sida u quruxda badan u diyaarsan oo inay dadku ku nafisaan oo ku lugeeyaan waxaan karo walaal aan u diyaarinay xaafadaani in ay dadku ku majabaxsadaan oo ku lugeeyaan ilaa marka 3 kiiloomitir oo wada ah oo ay ku lugeynayaan oo diyaarsan oo laami interlog isku jira oo labada dhinacba aanu geeda kaga beernay ayaanu diyaarinay marka waxay u sahlaysaa maalinkiina inay soo qoraxdu qabanayo dhirta dhexarsadaan markay ku lugeynayaan habeenkiina leerarka cadceed aha ayay leeyihiin oo marka habeenkiina waa lagu lugeyn karaa maalinkiina leerarkii solarka aha masaafada mashruucani markuu dhamaado uu ku fadhiyi doona inta bay leegtay maxamed walaal xaafadani dheer ahaan sida waxay u tahay 3 kiiloomitir sidaana waxay u tahay aduu isku celiska ama guud waa 6 kiiloomitir square walaal 6 kiiloomitir square weeyo marka imika waa wajigii hore ama waa face 1 kii weeyo walaal intaba iyo qudhowdiisu jiri doonaan kuwa kale meelahan oo bay noqonayaan walaal inta qaybahaas face way kala xiray hadda marka qaybtan hadda ku dhex jirno waa facekii koowaad hadda dhex marayno 3 face oo kale inaga dameeyo xagga inaga waxaad ii sheegtay maxamedow in wejiga hore uu noqon doono ilaa 200 oo guri dadku ilaa imika sidee baa loo xiisaynaya mashruucan cabdisalaam walaal waa mahadsan tahay mashruucan dadku aad iyo aad bay u xiisaynayaan u daneynayaan dadka ugu badan oo hadda xaafadan faceka hore qaatayna waxay u badan yihiin dad qurba jooga oo qaatay oo almost waa tagi doonaayo guryahoodii waa loo bilaabay ay degi lahaayeen qaybtoodna haddaan ku tusi doonaayo waa socdaan qaybtoodna waa dhammaadeen qaybtoodna hadda gabagabay ku dhow yihiin marka waxa weeye aad iyo aad bay dadku u daneynayaan xaafadan inay soo degaan xaafadani sidaan qiyaasayo ama aan ka warhayo waa tii ugu horreysay noocan ee garowe laga hirgeliyey soo maa nacam waa tii ugu horreysay ee noocaana ee sidaan u diyaarsan ee baaxadda intaa lay ku fadhida ee sidaan loo qaabeeyey ee casriga ee laga hirgasho waxa weeye garowe magaalada guud ahaan maxamedow maxuu ku soo biiranayaa bay kula tahay mashruucan wuxuu ku soo biiranayaa magaalada waxa ugu horeeya horta waa bilicda maadaama ay tahay garowe caasimadii Puntland
waxay ka qayb qaadanaysaa xaafadan casriga ah ee sidaan loo qaabeeyay inay ka qayb qaadato bilicda ee caasimadda Garowe waxa kale oo ay ku soo siyaadin doontaa dad badan oo qurba joog ah oo waxtar u ah wadankooda inay waxtar u hayo wadamo kale wax ku soo bartay ama khibradeedii aqoontoodii ikhbaasigoodii bale inay wadankooda ku soo guriyaan noqdaan oo wadankii wixii ay xagga ku hayeen ay soo sortiga halkan uga faa'iideeyaan walaal Cabdisalaam gartay imika waxaynu tagi doonaa bay la tahay guryaha muunada ugu tala gasheen ama showrooms maxamed guryahan waxay ka mid yihiin kuwa dadkooda ka soo dalbadeen ay iibiseen Soomaa kuwan dhismoodu socda Cabdisalaam guryahan horta wax ka kooban yihiin 8 nooc ama 8 jaad 8 nooc 5 kamid ah waa guryaha la yiraahdo bungalow ama dhaxdhiska oo gambiska ah saddex kamidana waa guryaha villooyinka ama G+1 ee dabaqa ah marka guryahan hadda waxay kamid yihiin guryaha dabaqyada ah ee G+1 ka ah labada dabaqa istul saar labada dabaqa istul saar labada dabaqa istul saar gurigan hadda Cabdisalaam uu inaga dameeyo wuxuu ku fadhiyaa space ahaan 2020 buu ku fadhiyaa wuxuuna ka kooban yahay 5 qol qol kamida iyo jikadii iyo fadhigii iyo qadadii iyo waliba qolkii laundryga hoos bay ku yaalan qaybta hoose qolkii chiefka oo master roomka ahaa master bedroomkii iyo suuligiisa gudaha iyo qolkii wiilasha qolkii gabdhaha iyo waliba balkoonadiisina qaybta kore ku yaalan Cabdisalaam waxaan aad iyo aad uga helay halku dhiga مشروعنا أو سبيسين محوية مشروعنا هالكوديجيس وحوي عبد السلام وقاد بان وقفكرنا ورث مكان هلا ممكن سنين وحنا نري كنا ولو ضلكاغا والله نولو دنيا كره كنا ولو ضلكاغا والله نولو دنيا كره وحوي أبو ودكاغا كنا سيد دنيا كره ونوشة سيد دنيا كره نعم هاي dadku markay idin ka soo dalbadaan ma idinku ba guriga u garanaya mise iyaguna waxbay ku darsanayaan guriga dhismihiisa sidoo noqonayo may Cabdisalaam dadku markay guriga soo dalbadaan mara stages buu mara ama marxalado ayuu mara qofku mar alla markuu guriga soo dalbado horta waxa loo diraa qofku haduu dibadda jiraan master balanka loo diraa oo waxa la tusaa xaafadu qaabkeeda say u qaabaysan qaybaha commercialka masaajidka beerta meesha u dhow yahay marka master balanka aanu fahansiino oo booskiisa soo calaamadsado ayaa booskiisa marka loo qaabeeyo loo naqshadaya ama wakiil halkan jooga wadanka jooga ayuu soo dirsaday Cabdisalaam walaal gartay laakiin muuqaalka guud waxa la sheegay guriyuhu inay isu wadeegi laakiin gudaha qofku uu dooran karo gurigiisa sidoo noqonayo Cabdisalaam horta sideedaba qofku gurigiisa mustaqbalka mar buu dhistaa sida la yiraahdo marka laga hadlayo marka guriga doorashadiisa guriga banaanka sida dibadda muuqaalka guud ee xaafadu waa isku naqshad weey marka laga yimaado guriyaha kala duwan noocyadooda laakiin qofku wuxuu access u leeyahay ama optional ah oo furan interior design-kiisa inuu xor u yahay qofku uu naqshadaysan karo bedelin karo oo qolka hurdadu halka hay noqdo kaasina hay noqdo fadhiga gartay imise guri baa imika socda waxa socda marka waqtigan 200 guri laakiin kunka guri 100 guriba Cabdisalaam waa gadaynaa hadda intee lag baa ilaa imika la qaato inta hadda dhismuhu ku socdana ilaa iyo waxay gaarayaan konton oo dhismuhu socdo inta dalabka ku jirana ilaa iyo 100 siyaada gaarayaan Cabdisalaam gartay maxaa kale u sheegi lahayd qofka laga yaabo inuu danaynayo mashruucan oo raba inuu guri ka qaato laakiin go'aankiisu wali aanu 100% ahayn Cabdisalaam xaafadan markaan ka hadlayno dadkii guryaha nasiibka u helay oo doortay oo kamid noqday runtii aad iyo aad u la cajabeen dadku marka ay xaafada soo dhex galaan qofku waxa uu ku hameenayaa gurigiisa mustaqbalka inuu halkan ka dhisto haay marka dhammaan waxaan ugu bishaareynaa bulshada qurba joogta inay ka faa'iideystaan fursadan dahabiga ee malaayiinta dollar lagu maalgeliyay maxamed waynu iman doonaa payment planka ama sida lacagaha loo bixinayo laakiin shaqaalaha hadaan mid iyo laba ka weydiiyo Soomaali badan baa ay muuqata shaqaalaha ajnabi ay muuqda shaqaalaha dhisaya wadamada ka kala yimaadeen Cabdisalaam shaqaalahaasi waxay ka kala yimaadeen wadamo kala duwan waxay ka yimaadeen Turki waa shaqaalaha Turkiga iyo Philippines Pakistaniyiin Kenyaati iyo Soomaali inta saxaafada dhisaysa marka beeshii caalamka dhisaysa ma loo kala waayay laakiin shaqaalaha Soomaalidu waa ku badan yihiin shaqaalaha Soomaalidu ku badan laakiin xirfadii ay gaabiska ka ahaayeen ayaan dadkaas soo qaadanay Cabdisalaam oo cidda naqshadaha sameynayna waa injineero Turkiya oo naqshada xaafada iyo qaabkeeda qaabay waxa kale oo jira Cabdisalaam walaal guryaha kan anagu laba waxyaalood baan aad u ilaalin wax la yiraahdo quality control ama quality control guryahan saa u jeeday gabigoodu baa dhismaha guriga naga damay gabigiisu waa wada shub way way
materialka qalabka lagu dhisayana inta badan waxaanu leenahay waanu tagi doonaayo waa soo arki doontaa warehouse-ka qalabka lagu keedinayaan leenahay materialkana inta badan dalka dibadda ka keenna marka aad waxaanu u ilaalinay guriga quality-giisa aad u ilaalin inta aan guriga la dhisin cabdisalaan walaal waxa la sameeyaa laabkii baa noo yaal soil test baa la qaadaa waa la hubiyaa marka ciidii baa la eegaya halka guriga laga dhisayo meeshaani saalix ba ku tahay ama ku haboon tahay in guri laga dhiso marka la qaado soil testiga oo laabka la gasho oo la soo baaro marka ka bacdi walaal oo la yiraahdo waa ku haboon tahay markaas guriga la bilaabay maxamedow noocyada kala duwan ee guryaha qofku markuu soo dalbado ilaa markuu gurigu diyaar u noqonayo muddo intee lag bay qaadanaysaa cabdisalaanow annagu waxaan ugu talagalnay guryaha muddo sanad gudaheeda aan ku dhisno qof gabigeeda maalinta aan guri oo heshiiska saxiixo gurigiisa uu iibsado maalinta warqadda saxiixo ay ka bilaabanaysaa sanad gudihiisa furaha waa lagu wareejinaya cabdisalaan walaal sanadkiisa lagu dhigay dadka laga yaabo inay doonayaan inay guriga ka iibsadaan mashruucan oo ay ka mid noqdaan laakiin imika aan u diyaarsanayn inay soo degaan kira ma u heli karayaan bay kula tahay maxamed waxaa jira qaybta xafiisyada hadda waxaan ku soo aragnay qayb dhan oo xafiis oo la yiraahdo asset management xafiiskaas wuxuu ka shaqaynayaa xaafadan iyo guryaheeda iyo maamulkeeda kii kireen raba kii gadasho raba kii ma garanaysaa dayactir raba waxaasoo dhan buu xafiiskaas ka shaqaynaya cabdisalaan marka qofkii aan sidaan sheegay imika u diyaarsanayn inuu waddanka u soo guuro kira waa u helaya idinkaa u kiraynaya anaga u kirayno wakiil uga ah waliba u joogno furayaashiisa iyo mas'uuliyadiisiiba anaga u haynayna sidii aad arkayseen waxaynu soo aragnay qaar ka mid ah guryaha labada dabaq ka kooban ama G+1ka waxa loo yaqaano halkan waa bangalooyinkii miya maxamedow cabdisalaan walaal guryahan waa bangalooyinkii waa guryihii yaryaraha koobnaa waliba dhaxdhiska ahaa waan ugu talagalnay kastamaradu inay option noqdaan guryaha kay rabaan qofkii dabaq raba iyo qofkii guri aan dabaq ahayn ba raba labadaba inuu helo guryaha noocyadooda cabdisalaan saan horeba kuugu sheegayba 8 nooc bay noqonayaan waa dhismayaasha kala duwan يعني نوعية أي نقطة شن كم إذا وقريها اللي يراد بنجلو بنجلويك أو جنب سكاي الحديث قلت مركا كان إما كان اسمه الصعود كله إما سقول بنقطة قريها هذا واحد اللي يراد بنجلو بي قريها مركا ورهرت هو الحديث دير الحديث ولي أنت قدها كوتش دانا وحكي كوبان تاي وآفر قل صدق قلوا تشيفة قل كيف فرق يقدروا اسكفرا شكدي ستور كذي يولي ببيرتيسي واللاندسكيب كي العقاري وقروح بدن أنت سقريها سككوبي aad baan loo sheegay isagoo bangalow ah haddana waa wada shub gurigan tayadiisana aad baa loo hubiyay materialka galayna aad iyo aad baa looga taxadiray kaliya cabdisalaan dalabyada ilaa imika hesheen maxamedow noocyada guryaha kala duwan ma kuwana u badan bangalooyinka ma kuwa is dul saaran baa u badan dadku kuweebay danaynayaan cabdisalaan walaal waa guriga isku jir dadku intaba guryaha noocyadooda way aad bay u wada danaynayaan marka waxaan dhihi karnaa waxa aad u badan وقريها واوين هي ضغط صوت البنية قريها وقبضان إلى صوت وقريها واوين قدها مسوي كرنا وسوي كنا عبد السلام ولا واقلي كنا قدها عبد السلام قريها وقريها كل شيء جاي وبنقول بيئة مركب وجوه الرئيس شيبسن كيسة صانع لغة شقية كرمر كينو ابن سيدان وديارسي وحكرة وكردود كيسي ما حد يحتاجنا ها وين تدحي عبد السلام حضان كهر مرنا قل كان هذا وقل كيف فرق يقدده وسكفران وأوبن وقفر وكذا وفرق يقدده سفران ورؤوش دا نعوض نقول عيسى أنت هاي أركض شيء بقفر بهذا بيداقل بوين قل كنا آد بوين هذا كانوا كر عبر كيس وحوي تضرب متر أفر متر وين ومركب وفرق أفر متر وين عبد السلام waxyaabaha kale inta badan guriyaha Soomaalida ka dhiman finishingka kamid ah Abdisalaam hada gurigan aad baa looga shaqeeyay finishingkiisa oo dhameystirka gidaarka la dheeri ma jiro way qolalka kale waxay noqonayaan waa chiefkii Abdisalaam guriga qolkaani qolkii master bedroomkii way waa qolkii hurdada way suuligiisina guduhu ku leeyahay وجهه مسؤوليسي او غار وجهه sidaan baan loo qaabeeyay ma chipsinkiisi iyo wixii wata hatta waxa loo diyaariyo qofku haduu u baahdo arku dhigshkiisa inuu ku xiran karayo oo loo sii diyaariyo systemkiisa korontada oo dhanna waa ku wada jiraan oo ujeedaa waa ku dhameystiran yahay marka koronto dibadda maraysa ma jiro gidaarka wada raacsan dhamaantood had baa loo musqushaan iyaduna waa musqushii public ahayd qolalka u dhaxeeyay
iyadana la isticmaalayay qolalkan kare qolka fadhiga iyo isticmaalka loogu talagalay marka laga yimaado taas Cabdisalaan dee qolalka kale qudhoodu ma yaryar aad u weyn ya daaqaduhu inta la leeyihiin oo waasacsan Cabdisalaan oo hadda guryahan aad u wada jeedid dhamaantood guryaha macaamiisha dhamaantood waa la wada gatay guryahan marka bangaloyin bay noqonayaan waa la wada gatay dhamaantood sida laaligeed Cabdisalaan waxaan u diyaarinay dadka xaafadda soo degaya maadaama ay families yihiin oo qoysas ay ka kooban yihiin noloshii xagga ku haysteen mid lamid ah halkan ugu diyaarin oo life style waa halku dhigayo marka Cabdisalaan waxaan halkan ugu diyaarinay balay garoonadii ay ku ciyaariyeen garoomadii kuwii kubadda cagta kuwii basketballkii swimming poolkii ay ku dabaalanayeen waa ku yaala xaafadda uu leeyahay waxay kaloo aan ugu diyaarinay beertii nasniinada iyo dalxiiska ay ku nasanayeen waxay kaloo leedahay xaafaddu Cabdisalaanow 24 hour security leedahay xaafaddu xagga ammaanka oo xataa kaamirooyin baa dhexdeeda ku xiran oo cid iskama soo gali karo oo qofka customerka guriga degan markay dadku u yimaanayaan waxa la siinaya kaar baasurka loo gelinaya oo qofka marka xaafadda degan buu u tagay marka wala kala garanaya qofka degan wala kala garanaya waxaan kaloo Cabdisalaanow iyadana aanu aad ugu diyaarinay dadka in ay ka heli karayaan iskool international waxbarasho ama halkan ugu diyaarin oo ilmahood marka xagga ka yimaadaan iskoolkiina waxbarashada halkan ka sii wadan karayaan iyo waliba caafimaadkii adeegyadii oo dhan ayaan ku dhameystirnay Cabdisalaan xasan yaasiin waxa weeye la taliyaha guud ee mashruucan waxana weeye injineeradii la bilaabay mashruucan markii asaaska loo dhigay injineer xasan aad iyo aad baan ku salaamaya marka hore mahadsan tahay Cabdisalaan de marka mashruuciinu waa isku filan qalabka oo idinka samaysta qalabka marka laga reebo waxyaalo yar yar aan dalka laga heli karin badidiisu waxa weeye waxaanu ku sameynaa halkan warshaddan aanu joognaay waa warshadda interloga samaysa dhulka la dhigo waxa materialka ama aalad laga sameeyo oo dhan waxaanu ka soo qaadanaa dalka waxaanu ka soo saarnaa buuraha annaga ayaa process garayna processku wuxuu ka bilaabmaa dhinacaas halkaas lagu soo moolgareeyaa lagu soo wax soo saarka ka soo bilaabataa maxsuulka ka soo baxa halkaana 2 bari 3 bari lagu hayaa waa lagu waraabiyaa markay soo karaana waxa la geeyaa qaybta baarkinka oo dhinacaas Cabdisalaan waxa xusid mudan wixii burbura ama xumaada fadda kuma darno mar labaad ayaanu burburinaa recycle ayaanu gelinaa dib ayaanu u isticmaalnaa processka ayaanu xagga ka soo gelinaa dadna xaggana ka soo noqonayaan haddana faamcuneed waxa weeye wax qashin ah oo productionka iyaga ka soo hara haba yaraatee ma iyo wax khasaaraya injineer xasan haddaan ku weydiiyo marka alaabta interlogani ka mid yahay dhismayaasha meel kale looga keenayo iyo marka sidan oo kale site-ka ama goobta lafteeda lagu samaynayo company-ga laftiisa uu samaysanayo maxay ku kala duwan tahay siyaalo badan bay ku kala duwan yihiin waxaanu leenahay shaybaar aan ku cabirno quality-ga ay leeyihiin dhammaan materialka aanu isticmaalayno waxaanu ka soo garanaa dalka qiimo ahaanna waa fahmi kartaa in isbedel uu ku imaan karo waxa aad ugu soo saaratay iyo wax dad faa'iido soo saaratay production halka laga soo saaraa wuxuu si kale ugu roon yahay meel dhow baa laga soo saaray waxba yaraatay environment-ka dhibaatada uu geystay ma ay jirto marka ciidan oo kale injineer xasanow ka soo qaadeen doox oo kale sidee bay ku tahay dhismaha aad iyo aad ugu fiicantay ma isticmaalno ilaa aanu marino shaybaar ciidda aanu isticmaalayno waxaanu eegnaa xaddiga kala duwanaanshaha materialka meesha ku jirto iyo astaamaheeda midda kiimikaad iyo midda duleed labadaba marka uu soo dhaafaan shaybaarka iyaga ay soo dhaafaan waxaan ku sameynaa shaybaar kale oo waanu jabinaa waanu eegnaa inta uu culayskiisu leeyahay markaa ka bacd ayaan productiga ku soo daynaa wax soo saarka iyaga aanu gelinaa waan markaa mass product ku sameynaa halkan oo kale maxay tahay marka halkan maxaa ka socda bulukeetigii baa lagu dhisayaa halkan waa halkii bulukeetigii waa jaajuurkii halkan waa jaajuurkii jaajuurkii wuxuu ka kooban yahay ciidda shayga la yareeyay iyo shayga la sii kala yareeyay waxaan ugu talagalnay in tayadiisu u dhawaato subkii aad buu uga adag yahay saasoo tahay waxaan ku sameynaa tijaabo laboratory-ga inta uu xoog leeyahay iyo marka wax aan la tijaabinin oo marka dambena aan la taskarayn ama la eegin
quality-giisu siduu yahay ma gelisaan waxba kuma dhistaan innaba haba yaraatee dhammaan waxyaalaha aanu soo saarno wax soo saarka iyagu waxay soo maraan baaritaan tijaabo ah marka mishiinkii aynu soo aragnay iyo kan imika aynu joognaaba way kaafiyayaan baahiyaha mashruuca sidan u ballaaran absolutely in badanoo ka mida way ka badan yihiin qaarna waa ka badan yihiin qaarna way kaafinayaan laakiin ilaa iyo hadda waxaanu leenahay kayd aad u ballaaran oo aanu ugu talagalnay inaan wax soo saarka iyagu kala go'in marka aanu guryaha dhisayno hadda kan waa garanaysaan muddaanu ku kaydinaynay meesha inta aanan guryaha bilaabin si aan annagoo dhexda kaga jirnaa aan production u kala go'in waxaa intaa kayd xoog leynu noo yaallo saasoo tahayna waxaanu qiyaasnay warshadeedaan inta ay soo saarto inay kabi karto inta aanu maalintii xagga ka soo saarayno waa balance aanu isku samaynay wax soo saar oo kale imsa xabaa samayn kartaa qiyaastii 2,000 xabo hadda noocaanu samaynay ku xiran tahay bulkeetu isaga kala weyn kaas waa kii darbiga jidka geeskiisa la dhigi jiray marba waxay ku xiran tahay nooca aanu soo saarayno laakiin midda ugu tirada badan oo aanu soo saarnaayo markay ugu yaraato 1,500 ilaa 2,000 xabo waa soo saarnaa maalintii qayb ka mid laakiin qaar ka sii batana waa jiraan qaar xoogaa ka yarna waa jiraan hadda waxay ku xiran tahay mishiinka nooca aan gelino meeshaas inta uu u baahan yahay xaddi shamiita ama jay ama isku dhiskaas injineer xasan waxaan ka warhayaa inaad muddo dheer ku soo noolayd wadamada Yurub qaarkood markaad imika eegto nidaamkii ama heerkii ama tayadii wax loo dhisayay wadamada reer galbeedka iyo halka maanta aynu joogno maxaad ku tilmaami lahayd waa maasantahay su'aal aad iyo aad u muhiim ah dhismaha iyagu waxaanu isticmaalnaa standard caalami ah xogaa waxaa moodaa intii muddo ah inaan la xadayn standard Soomaalida dhismaheedu leeyahay waxaanu isticmaalnaa standardyada caalamiga British standard baan isticmaalnaa waxaan isticmaalnaa Euro code mid la yiraahdo inta ugu tira badan labada standard baan isticmaalnaa dhammaan production-ka ka kooban shubka iyo birta iyo alwaaxda iyo xataa side planning wuxuu ku beesgaysan yahay ama ku salaysan yahay standard caalami ah buu ku salaysan yahay waxyaalaha aan kaga duwanahay waa ay jirtaado Yurubta energy-ga ama tamarta waa la ceshadaa waa aragtay halkaana tamarta kuleelkeeda la iska celiyaa dhinaca saas xogaa ayaala ku kala duwanahay waa jaagnaa laakiin meelaha badan oo hadda saan wax u dhisan marka waxaad leedahay maadaama iyagu jawi qabow ku nool yihiin waxa la isku dayaa in deerimaadkii gudaha lagu hayo halkan qabowgii baa la rabaa halkan meelna qabow kuleelkii baa la ceshadaa meelna kuleelkii baa la iska celiyaa marka annaga teoriyagu wuxuu keenay inaan kuleelkii iska celino qabowga aanu abuurano annaga oo guriga aan ku dhex siidaysano uusan banaanka u bixin xagga ay tahay Yurub taas cagsigeeda ama rogaalkeeda oo ah in kuleelka aad ku siidaysatid guriga gudihiisa uusan banaanka kaaga bixin halkan waa beerta tijaabada waxaanu keennaa waxaan uga jeednaa dalagyaa jira xataa dibadda aanu ka keennay aan ku tijaabinayno inuu carradeenna ku baxayo halkan markaanu ku beerno qaarna carradeenna way ku xumaan waayaan iyo cimilada halkan qaarna bog bay yiraahdaan markay soo baxaan waa ku barbaarinaa halkan markay ilaa xad soo weynaadaan oo ilaa intaas leekaadaan baanu qaadnaa haddana waxaan geynaa meel kale oo lagu sii koriyo oo geeskaas ah inta aan la beerin marka midka aadka ugu fiican cimilada halkan oo kuleylka badan qaadanaya isla markaba halkaana laga garanayaa injineer xasan oo dhir aad u fara badan baa ku beeran halkan mashruucan oo kaliya ugu tala gasheen Amal Village waxaanu aad uga qayb qaadanay mashruuca cagaarinta magaalada iyo dalka in badan oo kamid ah waxaanu ku sameynay distribution ama si mutadawacnimo ah oo aan ka gadin magaalada aanu siinay wasaaradda aanu siinay hay'ado gooni aanu siinay waxaanu aad u dhiirigelinaynay in wax beeristu ay aad u dhib yar tahay waxaan kale oo sameynaa dadku inay noo yimaadaan oo arkaan dhulkaanu say amal ugu baxday dhirtu iyo xataa wixii farsamo oo tala ah aanu ka siinayno carooyinka isticmaalayaan waxyaalaha ay kula dareerayaan cusbada dhulkan waa dhul cusbo si ay ula dagaalamayaan dhul cusbo markaad leeyahay biyaha cusbo la miya biyaha wiyeer xogaa adag ay ku jiraan ay ku badan yihiin cusbooyin ku badan yihiin marka
dhirtii aan cusbooyinta iska celin karin halkaana laga gartaa biyaha lagu waraabinayaa sidaas ah marka dadka aanu siinayno midka aanu siinayno dhirta aanu dhiibaynaa ma ahan dhir aad u yar yar oo qoraxda hore uga dhimanaysa waxaanu bixinaa dhirtu markay saas oo kale u waaweynaadaan ay soo go'da kabcaan oo waaweyn injineer xasan oo markaa de mashruucu markuu gabagaba noqdo Amal Village wuxuu tusaale u noqonayaa ma la oran karaa xagga dhiraynta markay noqoto magaalada Garowe oo dhan sanurjana yoolkaan hugsanaynaay waa inaan tusaale u noqono Soomaaliya oo dhan ما هجروا كليا جروا كليا معهن واي waxaan raadinaynaa waxa weeyaan aanu dadka tusno in dhirtii dhimatay iyo kuwa hor laba la keeni karo dalka in la abuuri karo isku dhisnaan bay'ada ah humda midka kala taageerayo waxaan higsanaynaa waa inaanu construction ka iyagu sustainable noqdaa mid waaraya inuu noqdaa isagoo aan waxba yeelahayn bay'ada isagoo aan waxba yeelayn nolosha dadka kale inuu ku soo siyaadiyo mooyaane maadaama aad soo qaaday in deegaanka lagu yaqaano biyo adag biyaha la cabayo ama dadku ay isticmaalayaan Amal Village iyaga maxaa ugu tala gasheen waxaanu leenahay warshad waan ku tusi doonaa lagu sifayn doono biyaha oo meesha noo taala marka guriyaha la soo dago hadii rabiidno lagu xirayo dhammaan xataa waxaanu qorsheynaynaa kuwa wax ku waraabinayna inay biyo macaan noqdaan kuwa guriyaha laga cabayo iska daaysan hadii Allah awoodo la yiraahdo marka waxaanu leenahay warshadii sifayn jirtay biyaha waxaanu leenahay ceel weyn waxaanu qorsheynaynaa inaan qaar hor leh si qodno oo ceelal ah waxaanu wadnaa tijaabooyinka biyaha walaana sida aan u helno meel noo dhow biyuhu aad uga simcaayeen kaanu nahay inkastoo Garowe aanu nahay meesha ugu biyo macaan ama dhul dooxa oo biyahooduna aad u macaan yihiin una badan yihiin waxaanu imika soo gaadnay meesha crusherka ama dhagaxaanta lagu jabiyo halkan maxaa lagu sameeyaa xasanow cabdisalaanow halkan waa meesha uu ka bilaabmo barbilowga wax soo saarku halkan uu ka bilaabmaa dhagaxaan baa la soo qaadayaa halkaana lagu gurayaa way kala saandaynaysaa ciiday ka reebaysaa waxay marinaysaa beltgaas suunkaas dheer way jajabinaysaa haddana intii waaweynaado dib bay ugu soo celinaysaa haddana way jajabinaysaa waxaanu soo saarnaa dhowr nooc oo dhagax oo kuwan xagga dambe iga muuqdaa waa kala duwan yihiin qaar waa qaarkii shubka lagu sameeyay qaar waa qaarkii laamiga qaar waa qaarkii bulukeetiga hadda nooca loo baahan yahay bay halka dhigtaa halkan waa meesha oo ka soo bilaabmo processku shayga lagaga soo shubaa saddex nooc marka maxay la sameeyay marka la sameeyo laamiga daamurka marka daamurku waa qayb kamid ah laamiga kamid ah halkan shayga waa laga soo bilaabaa saddex nooc afar nooc oo kala gedisan oo shay ah oo kala waaweyn baa lagu soo shubaa ka bacdina halkan way isku qasaysaa markay isku qasana waxay raacaysaa suunkan waxay geynaysaa halkan iyadu mar labaad ayay wax isku qasaysaa iyadii oo ku daraysa carro jilicsan oo ka ilaalinaysa meelaha dabaysha iyo bambanaan oo dhan buuxinaysa oo injineer xasan oo markaa sidii dhici jirtay ma jirto inta shayga la shubo in daamirka dusha laga shubo maahan markuu soo daro daamirka waxa lagu sameeyaa haanta gadaalon hadda aan ku tusi doono inta markuu sameeyo ka bacdan waxaanu sameeynaa test tijaabo baanu sameeynaa marka laboratory ah inuu yahay noocii anagu aan rabnay jidkan markaa 4 kiiloomitir ah ee magaalada ka yimaadee Amal Village soo gala ma idinka dhisay dhammaantiis anaga dhisnay anaga iqtiraacnay oo dhisan garaynay materialka meesha crusherkan ku tusaynay baanu qalabka ka soo saarnay dhagaxaan u isticmaalnay buuraha nuqaanay intaan aan isticmaalina waxaan ku soo jaaminay tijaabo laboratory aan soo marnay inuu yahay nooc anagu aan dooninay markaan intaan u baahnay soo saarnay baanu processkan warshadaynta ah aan soo marinay hadhowna Amal Village sida qiyaasayo jidadka dhex marayo oo dhan halkana alaabtooda ka sameynaysa inta say u dhantahay saan oo kale aan u sameeynaa si aan laamiga u sameeynay oo kale yani hadii alla yiraahdo u sameeynaa iyadana injineer xasan aad iyo aad baad u mahadsantay imika waxaanu ku soo noqonnay xafiiska maamulka ee Amal Village oo qaybo fara badan oo kamid ah soo aragteen muuqaalku markuu dhamaystirmana sidan uu noqonayaa de waa magaalo iska dhan baa la oran karaa cabsana waa magaalo iska dhan oo halkaani waa master plan-ka xaafadda iyo xaafaddu sida ay noqonayso haddaan dib kugu yara tuso meeshan waa wadadii aynu ka soo galnay markaynu magaalada ka soo baxnay cabdisalaano
sidaanaynu u soo leexannay meesha aan xaafadda ka soo galnay waa kan dhismaheeda dhismahan baynu hadda dul taaganahay cabdisalaam xafiisyadu waa halkan masaajidka waa ka halkan ka muuqda qaybihii commercialka waa halkan ka muuqda qaybtan cabdisalaam waxaan ugu talagalnay iyagana meelihii caamka ah sida hoolkii shirarka maqaaxi casriya ee garoomadii baakinadii caamka ahaa garoomadii way halkan ka muuqda cabdisalaam xaafaddu iyadoo guri kasta uu baakinkiisa leeyahay haddana waxaa jira face kasta wuxuu leeyahay baakinkiisa gaarka wuxuu leeyahay qaybtiisa commercialka wuxuu leeyahay masaajidkiisa goonida wuxuu leeyahay meeshiisa beerta gaarka qayb waliba waxa laakiin aad ii soo jiitay biyo mareenkan isaguna bartarka ku dhufanaya cabdisalaam idinka sameynaya waa wabi macmala oo river yar aan ugu talagalnay in lagu dhex magaranaysa yacanaha oo muuqaalka bixinaya halkan maxamedow hara iiga muuqatayna way ajiib garoomadiina qaybo kale waa kuwan qofka barnaamijkan daawada ee muuqaalkan arka su'aal uu isweydiinaya ku weydiinaya maxamedow qiimaha guriga muxuu noqonayaa cabdisalaam marka laba qaab guriyahan loo gadanaya qaab waa qaab cash payment ah qaabna waa qaab finance ah cash payment haddaan kuugu hormaro waa qofku marka uu lacag cash gurigiisa ku gadanayo marka saddex stage ma dhaa mar kaliya uu wada shuban karaa laakiin saddex stage ma dhaa marka ugu horeyso qofku gurigiisa ku qanco boqolkiiba 50 buu bixinaya cabdisalaam oo lacagta guriga ah qiimihii guriga buu boqolkiiba 50 ama kala bar lacagta bixinaya heshiisku saxiixaya shaqadii guriga loo bilaabaya waa down payment kabacdi guriga superstructure-kiisa ama qalfooftiisa guud guriga markay dhamaato boqolkiiba 30 buu bixinaya cabdisalaam qaybta ugu dambayso handover-ka oo furaha lagu wareejinayo ama completion-ka oo marka guriga la dhameystira walaal 20 ka haray ama 20% ka haray ayuu bixinaya sidaas boqolkiiba 100 sanadka gudihii waa sanadka gudihii qayb kale oo cabdisalaam waxa jira aan u bixinay finance oo bangiga amal oo mashruucan bamaal gelinaya mashruucan amal real estate bamaal gelinaya qaybta ugu weyn ugu culusa bangiga amal ayaa wuxuu sameeynaya qofku maadaama lacagtii kaashka aan la wada hayn waxa uu qofku sameeynaya boqolkiiba 30 buu lacagta shubaya 70 kale bangiga u maalgelinaya guriga u gadaya cabdisalaam 6 sano ayuu haystaa marka oo installment iskaga yareeynaya si tartiib haftu ku bixinaya hafta u bixinaya way qiimihii muxuu noqonayaa marka guryaha noocyadooda kala cabdisalaam guriyuhu waa 8 nooc ama 8 jaab 8 nooc 5 kamid waa guryaha dhexdiska ee bangalowga 3 kamidna waa guryaha villooyinka ee G+1ka ee dabaqa iskorsaarka guryahaas marka 8 nooc ah cabdisalaam marka hore waxa kala duwan yihiin cabirka dhulka guriga noociisa naqshada qolalka intaas kala duwan marka guud marka waxay ku xiran tahay baahida dadka macaamiisha ee guriga soo dalbanaya family hadba intuu la egyahay ma family badan ba ma family kooban ba family yar inta habba uu family-ga iska koobaya marka baahiyahooga iyaga marka ay nala soo xariiraan oo ay noo sheegaan guriga ay rabaan markaas ayaan waxaan u gudbinaa guriga qiimihiisa iyo muddada loogu dhisay iyo waqtigooda ayaan ugu cadaynaa cabdisalaam maxamed faarax aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan hubaa wixii maanta aan soo arkay haddii ay la aragtaan inaan aad iyo aad ugu bogi lahaydeen barnaamijkana aad kaga bogateen sidaan qiyaasayo magaalada ka mid noqo barnaamijkana intaas ku dhan yahay nabadgelyo